Salaamu calaykum. Boqorkii dahabka iyo milixda ee Mansa Musa waa nin reer Maali ah, waxaana uu dhashay 1280-kii, waxaana xukumi jiray dalka Maali, waxaana hantidiisa lagu qiyaasaa $400 bilyan, wuxuuna hantidiisa ka helay ganacsiga milixda iyo dahabka in ka badan inta sahayda adduunka xiga taaray. Waxaa laga yaabaa inaad maqashay, laakiin aqoon buuxda aanad u lahayn. Waxaa jira masaajido laga dhisay dhabarka Musa. Dhimashadii 1337, Musa lacagtiisii fara badnayd waxa uu ka dhaxlay dhaxlayaashii sidii Boqorkii labaad, kuwaasoo aan khasaarin lacagta ugu wanaagsan, laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu ilaaliyo qoys u qalma 2 jiil marka lagu afgembiyey dagaalkii sokeeye, isla markaana la jebiyey isagoo ku duulaya shisheeye. Quruumaha Musa wuxuu ahaa Maasii 10aad ee boqortooyadii Maali, wuxuuna xukumi jiray qaybta ugu wanaagsan, waxayna ahaan jireen Ghana oo maanta loo yaqaan Mauritania iyo Maali. Intii uu xukunka hayay, waxa uu qabsaday 24 magaalo iyo degmooyinkoodii, isaga oo ururiyay hanti bidix iyo midigba. Marka laga yimaado, wuxuu ahaa soo saaraha dahabka ee ugu weyn